gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa go'aansaday in uu iscasilayo sida uu BBC-da u xaqiijiyay goor dhaweyd. xiriir ay la samaysay BBC-da ayuu Jawaari ku sheegay in Arbacada uu xilka wareejin doono. arrintan markii hore waxaa ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalkaasi Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo saakay warqad ka hor aqriyay fadhi qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan garabkii waday mooshinka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. xildhibaanadii ku sugnaa fadhigaasi ayuu u sheegay in uu soo qoray gudoomiye Jawaari warqadda iscasilaadda. wariyaha BBC-da Cali Nuur ayaana faahfaahinaya. arrinka ayaa ka dambeeyay ilaa 3 wareeg oo wada hadallo ah oo isaga iyo madaxweynaha dhexmaray oo looga hadlayay sidii loo xalin lahaa khilaaf soo kala dhexgalay xubno baarlamaanka ka kala tirsan oo soo bilowday 14 bishii hore ee Maarso. taa ayaa ka dhigan in khilaafkaas iyo xiisadii baarlamaanka gabi ahaanba ay soo gabagaboobi doonto. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey iyo xildhibaano waday mooshinka ayaa saaka isugu tagay xarunta golaha shacabka iyaga oo la filayay in ay cod qaadaan, balse gudoomiye Muudey ayaa halkaasi ka shaaciyay in ay halkaasi ku eg tahay arrinka mooshinka maadaama Jawaari uu ogolaaday in uu iscasilayo maalinta Arbacada ah, isla markaana uu codsaday in uu xildhibaanada hortooda ka sheego hadalka khudbad dheerna uu u jeediyo. arrinkan ayaa waxaa soo dhaweeyay dadka magaalada Muqdisho iyada oo magaaladu ay maalmihii la soo dhaafay ba xaalad cakiran ku jirtay, gaar ahaan marka ammaanka iyo sida ay ciidamadu u xirayeen wadooyinka iyo isu socodka magaalada laga hadlayo. haddii gudoomiye Jawaari uu booska baneeyo waxaa la filayaa in loolan cusub oo dhanka doorashada ah in uu Muqdisho ka bilaaban doono si booskaasi loo buuxiyo. faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adigoo ka galaya mobilkaaga.